waxaa xusid mudan habeenkii markii dhibaatadu dhacday bayarka Hargeysa la wareysay isagoo qaboogeysan wajiga la raadinaya maxaad warra magaalada waa gubatay aroos waa baax gaaray waa ka fadhiyay waa wax dadka markaas jaamacadaha hal baan ka oranayaa jaamacadu waa meelaha dalka laga hogaamiyo dal kasta ee laga hormariyo dhinac walba dhaqaale amni sharci science and technology si walba jaamacadaha ayaa daraasad sameeya oo dalka u soo bisleeya halka uu dhaqaaqi doono muddada dheer iyo muddada gaabanba jaamacadaha Somaliland oo ugu horeeyaan Hargeysa Camuud in badan bay hawshaas ka dhowraan maanaan arag research badan oo soo sameeyay in yar bay amniga ka sameeyeen iyo gobolada arrimaha nabadgelyada Baqaariya labaan ka akhriyay dhibaatooyinka dalka joogo ee ugu horeyso buuqa siyaasadda haddana jaamacadu daraasad ka sameeyeen maxaa mar walba doorasho galaba loo buuqa ee dhibaato u dhacda haddana ka soo warramin cimiladii roobka u yaraadee maxaynu yeelaynaa haddana ka warramin dhaqaalaha aynu haysanayo dhibaatooyinka si looga hortagaya ee jaamacadu dad badan soo saaraan waxa loo baahan yahay inay soo saaraan daraasado badan iyo meel madaxda dalku ay u noqoto marjac u noqda oo dhibaatooyinka jira ay ku furdaamiyaan hawshaana jaamacadaha waanu ka rabnaa waa la eegay inay tacliinta hore u martay oo jaamacadu dalka wax ka bedeleen oo dhalinyaradii ka baxday 19 sanadood iyo 10 intii ka horeysayba Camuud in ay isbedel ka muuqdo hogaaminta dalka iyo maamulkana waa marxaati madoon laba tusaale ayaan soo qaadanaya mid waa waaheen markay dhibaatadu dhacday dadkoo dhan uu soo gurmaday laakiin dhalinyarada jaamacadu waxay dheeraayeen muddo dhowr iyo 10 cisho ah ayay volunteerly cunto ku karinayeen magaalada dhexdeeda wiilayeenamo oo iyagu qaybinayeen oo lacagta iska ururiyeen oo haddii hawsha aan qaban ciidankii ammaanka iyo dadkii shaqaynayay ee gurmadka ahaa aanay hawsha furiyeen waxaanay muujinaysaa dal jacaylka iyo rajada fiican ka ifsada jaamacada ka baxay iyo aqoontoodii kor loo qaadiyo wadanimadooda ay muujinaysaa waxa ku xiga shaqo qaran intii ka gashay dawladda ama shirkado ama meel kale oo shaqo tagtay waxa marag madoona dadkii shaqo qaran koras yar oo 3 bilood kaliya soo qaatay inay ka muuqdaan maamul wanaaga hufnaanta iyo hogaaminta kuwii aan shaqo qaran soo maray kaga wanaagsan yihiin ayaana 100% marxaati loogay taasina waxay muujinaysaa in jaamacadihii iyo aqoontii dalku kor u kacday oo waa ku amaanaya jaamacadaha ee daraasadanaha ku daraan waa heen waxa ka muuqda oo aynu ku galnay dhibaatadii inagu dhacday marka hore inaynu qaboojinayno kantaroolo saacado yar dabkeena wariba ka yaabay inaan ku baqtino ku daweyno ku tabaalo gurbada waxa uu nooga yimid waxa ay Soomaaliland ka baxsan dhowr gaari oo jigjiga nooga yimid islaam maalintii labaadna halkaas uu dhexdiisa inuu tagno isku nimido waxaynu niri waa dhisanayna waa heelayna warwarin haddaynu ilaahay inagu soo kaashano ciidina caawinaysa waa ugu mahadnaqayna hadday ciidina soo caawiso kaliya baa ku tashanayna waynu ballan qaaday waynu fulinay 100% maalinta waxa xusid mudan habeenkii markii dhibaatadu dhacday bayarka Hargeysa la wareysay isagoo qaboogeysan wajiga la raadinaya maxaad warra magaalada waa gubatay aroos waa baax gaaray waa ka fadhiyay waa wax dadka markaas maayir bal waran caaw wallahi inta waxaan ku waramo ma garanayo waxaan ay maayir magaaladiisu gubatay hantidiisu baabaaday dhaqaalihii dadkiisu baabaay maxaa sababay maayir maxaa sababay isagoo qaboogeysan wajiga la raadinaya maxaad warra magaalada waa gubatay aroos waa baax gaaray waa ka fadhiyay waa wax dadka markaas oo kale dadka hogaaminaya maxaa jira ma bina dhisakay ma masiiba dhici kari ma wuxuu arrintii ma ka yaabo wuxuu xubintii maalintii uu istaago wuxuu istaagay Hargeysa oo aan dumiyo isoo dhan ayaa u dhisayna anagoo dawladda hoose oo balan qaadayna dawladda hoose hawsha way ka soo baxday intii ka gaadhay
dowladda hoose intii kaga beegnay way ka soo baxday waxa kale oo markhaati u ayna jaamacaduhu iyo tacliintu kor u qaadeen maamulkeennii oon hambalyaynayaa oynu u mahadnaqaynaa oonu leysana waxbaa ka dhimina haddaa ka dhintaanna waa idin canaanan doonaa dhammaan intooda badan 90% golayaashii deegaanka ee soo baxay ee magaalooyinka waaweyn iyo kuwa kaleba badankooda 90% baan u karaa inay u shaqeeyeen hab casriya wadaninimo ah oo ay dhiig cusub ku soo kordhiyeen maamulkii taasina waxay muujinaysaa jaamacadaha waxay soo saarayaan iyo mustaqbalka ay yeelanaysa Soomaaliland iyagana waa mahadnaqaynaa waan dhiirigelinayaa maamulada dowladda hoose inay intaa ka sii xoojiyaan